السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا كرام، حياكم الله وبشركم بالخير. halkaan nagala socotaan waa kanaalka Ibdaac Show. Kanaalkan waa kanaal cusub, waxaan kusoo gudbinaa taariikhda wararka markaa taagan ee caalamka, sidoo kale baraarujinta nafta ama waxaad ku magacaabi kartaa dhiirigelin. Maanta waxaan idin wadaa muuqaal cusub oo waana ah ama baraarujinta nafta ama waxaad ku magacaabi karto af Soomaali ahaan dhiirigelin. muuqaalka intaan guda gelin waxaan ka codsanaynaa kanaalka inaad kusoo biirto haddii aad awoodid inaad sii faafiso ugu yaraan like aad saarto muuqaalka si uu dad badan u gaadho ugana faa'iideystaan walaalo kale. haddii aan mowduuca toos u guda galno, maanta mowduucan ku wada wuxuu yahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqiga markuu abuuray wuxuu ku abuuray dabeecado kala duwan, midabyo kala duwan, meelo kala duwan. aadamuhu dhammaantood waxay u kala baxaan qoomiyado iyo qabiilo aanan waxba wadaagin, isku jinsi ahayn, isku dabeecad ahayn, isku waxgarad ahayn, isku aqli ahayn, aad u kala duwan. saas darteed qof waxa la wanaagsan qof bay la xun tahay, ka kale waxa la wanaagsan ka kale la xun tahay. muuqaalkeena salkiisu wuxuu noqonayaa qofka isku daya inaan wax laga sheegin wuxuu la mid yahay qof zamankii la ciloobay. qofka isku daya inaan wax laga sheegin wuxuu la mid yahay qof zamanku uu dhibayo uu nool yahay. caalamkan aan ku noolahay Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam waa kii ugu fadli badnaa waa la ciloobay. dad baa necba wuxuu sheegayo dhan, dad baa col ahaa. ilaa imika la joogo, ilaa inta ka horeysay qof walba adduunyada soo maray dad baa necb, dad baa wax ka sheega, dad baa amaana. idan dadka hareerihiisa ku dhow way ku kala duwan yihiin wax ka sheegiisa iyo qaabka ay u arkaan. saas darteed ha isku dayin weligaa inaad hado waxaan laga sheegin. hal arrin aan kuu sheegay, dadka wax ka sheegaya waxay ka sheegayaan wuxuu u qaybsamayaa labo. ko waxa laga sheegay wuxuu u qaybsamayaa wax wanaagsan iyo wax xun. waxa wanaagsan iyo waxa xun adiga waxa ku dhaanta inuu yahay wax xun waxa laga sheegayo. laba gooraba waxa ku roon adiga inuu yahay wax laga sheegayo waxa xun ama dhanka salbiga. adiga naf ahaantaada in lagu amaano iyo in lagu caayo waxa ku roon in lagu caayo. sababtan aan ku sheegay hadii lagu amaano laba mid bay noqonaysaa wax laga sheegayo inaad maqasho lagu soo gaarsiiyay inaan lagu soo gaarsiin. hadii lagu amaano oo lagu soo gaarsiiyo aad maqasho waxay u dhowdahay inaad kibir isgeliso, inaad isla weynaato in waxa laga sheegayo aadamo ay ka sheegayaan adiga naftaada iyo Ilaahay is ogtihiin aad ku kibirto oo waxaad ahayn asla noqoto. saas darteed wax wanaagsan oo laga sheegay inuu ku soo gaaro waxa ku dhaanta wax xun oo laga sheegay inuu ku soo gaaro. sababtana waxa xun ku anfacaya waxay tahay waxa xun ee laga sheegayo hadii uu kugu sugan yahay adiga wax kugu sugan uu yahay koow qofkii ka sheegay dambi bay ku tahay, adigana aakhira waxaad helaysaa amalkiisa. adigana waxay dan kugu tahay wixii laga sheegay xuma haduu wax kugu sugan aha waad iska bedelaysaa, waad garanaysaa in uu baraarujiyay waxan. saas darteed ay sabab noqonaysaa wixii xuma inaad ka tagto. hadii una kugu sugnayn oo wax adii aad ku jirto amal oo kaaga ama waxaad qabanayso shaqootaada ayna ahayni adiga wax kuma yeelayso kuma dhimayso waxaad ahayn, laakiin qofkii wax ka sheegay amalkiisii aad shaqaysanaysaa laba gooraba. amalkiisa ayaad helaysaa, amalaada shaqaysanay ajraada shaqaysanay ayaad aakhir Ilaahay subxaanahu wa ta'aala agtiisa ka helaysaa. sidaas darteed ha isku dayin inaad dhahdayaan wax la iga sheegin. naftaada ku qancin inay dhagaha u taagto wuxuu aadamuhu ka sheegayo. ku qanci Ilaahay subxaanahu wa ta'aala agtiisa maxaad ka tahay. naftaada ha u sheegin aadamaha agtooda maxaad ka tahay, ha ugu sheekaynin. maxaa yeelay ridwan naasi ghaayatun la tudrak baa leeyahay. dadka inaad raali geliso waa hadaf aan la gaadhayn. hadii aad isku daydo inaad aadamaha dhamaantood raali geliso waa hadaf aadan gaadhaynin waliga. laakiin isku daydo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala raali geliso wax yar oo ku diray ayaad ku raali gelinaysaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo ku culusayn. ha isku dayin inaad zamanka la ciloodo. zamanka inaad la ciloodo macnaheedu waa inaad hadayaan waxba la iga sheegin. qofka wax ka sheegana aad la ciloodo waxa la mid tahay qof zamanka la ciloobay. qofka wax ka sheegay Ilaahay dartii u cafi hadii aad ka jaran karto iyo hadii aad ka jaran karin labadaba. maxaa yeelay aduna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadhow wuu ku cafinayaa, wuxuuna dhahayaa adoonkan inaan cafiyo aniga kaga mudan. ha isku dayin inaad dadka indhahooda raali geliso, isku dayin inaad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala raali geliso. zamanka ha la ciloobin, la heshii zamanka una noolow sidii naftaada kaliya aad ku qancin lahayd. ha isku dayin inaad aadamaha raali geliso, naftaada raali geli, Ilaahayna raali geli subxaanahu wa ta'aala. والسلام عليكم ورحمة الله.